السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سود وينيا عدنا وندين سلامية وباهين تمضى حبنا ندير كجمهورية الصوماليلان وحن سوي رأي إن لو ذاقو شباب وافية ونكبر حين إنه إذا يمكن سوي رأي قدومي حسب معارض كاي وضاني عبد الرحمن محمد عبد الله قدوميها ومانته ورباهين كلها اللي قيبة كم ورباهين كلها اللي مقالة هرجيسة وحشيجي إن حير لمبر لبعتين لبكون يكو أنا قدومي وصحيحين سلام مركزنا aanu soo hadalka u dhigay aanu xeerkaas arkin maan saxiin macnaheedu wax weeye maan arkin gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro wuxuu ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo dheer xilka gudoomiyaha soo hayay xeer lambar 20 golaha wakiilada ee gudoomiyuhu uu gudoomiyaha ka ahaa waxa la hor keenay 7 jeer 7 jeerba waxa lagu sameeyay wax ka bedel 7 jeerba gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa gudoomiye ka ahaa golaha 7 jeer waxay ku taariikhaysan yihiin 9kii bishii afraad ee 2007 13kii bishii sagaalaad 2008 18kii bishii toddobaad 2009 10kii bishii shanaad 2010 7dii bishii 12aad 2011 11kii bishii sideedaad 2012 7 jeerba wax ka bedel ayaa lagu sameeyay waxaana gacantiisa ku saxay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan oo markaasi ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan dukumentiyada iyo qoraalada iyo saxiixyadaasi keedka qarankay ku jiraan warbaahintuna waanu la wadaagi karnaa wayna heli karaan oo meelaha ay qusayso meelaha yaalaan ayay ka heli karaan gudoomiyaha xasuusinaya xeerka wax ka bedelka lagu sameeyay muddada 7 jeeraba inuu saxiixyadiisi ay yaalaan dalka waxaan kaloon gudoomiye Cabdiraxmaan xasuusinaya golaha wakiiladu waa golihii sharci dejinta dalka waa golihii uu gudoonkiisa majaraha u soo hayay qawaaniinta iyo xeerarka ka soo baxaana waa kuwa dastuuriya oo sidooda u fula haddii gudoomiyuhu yiraahdo ma waafaqsani ama ma aqbalayo xeerarka ka soo baxa golihii wakiilada macnaheedu waxa weeyaan sharciga ma ogoli dalkuna sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay kala dambeyn buu leeyahay dhammaan sharciyada iyo xeerarkaasina waxay naga mudan yihiin ixtiraam iyo ilaalin waana waajibaad dastuuriya oo qof kastoo muwaadinana saaran mas'uuliyiinta qarankana saaran axsaabta qaranka mas'uuliyiintoodana saaran intaa waxaan ku dhaafiyaa xeerka wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu arrin maanta dadka shacabka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhigahooduna aanay jeclaysan dhawaaqeeduna uu dhiilaha oo aan qarankani maanta halkuu marayo iyo meeshaynu ku soconno iyo meeshaynu ka nimi midnaba aan midabkeedii lahayn gudoomiyuhu wuxuu sheegay in reer la bartilmaameedsanayo in reer la beegsanayo xaasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka jirta xukuumad waxa ka jira xilal qaran waxa ka jira xasaanad gudoomiye Cabdiraxmaan gudoomiye golaha wakiilada iyo gudoomiyaha xisbigu haatan taladiisa hayo wuxuu ku yimi kala dambeynta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalkeena ka hana qaaday ee nidaamka xisaabta badan aynu samaysanay gudoomiyuhu hayb iyo reer kuma iman halka uu maanta joogo hayb iyo reer lagagama riixin markii uu nasiib ku siiyay inuu gudoomiye golana noqdo gudoomiye xisbina noqdo balse siyaasadda Soomaaliland iyo hanaanka aynu haysano ayuu ku joogay oo ku shaqeeya oo imika ku jooga mudane gudoomiye xisbigaaga wadani ee aad gudoomiyaha ka tahay dhammaan taageerayaasha iyo dadka taageersan iyo kuwii ku codeeyay iyo kuwa imika ku taageersani gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bay degan yihiin waana dad reer Soomaaliland ma aha reer mana hayb gaar ah mudane gudoomiye xisbiga qaran ee hoggaankiisa hayso majarihiisa reer dabada ha la gelinin astaanta qaranka xisbigu leeyahayna ha u muujinin mid reereed aniga waa afayeenkii madaxtooyadu Cabdiraxmaan waa in adeerkay isku reer baanu nahay mas'uuliyiin kale oo fara badan oo 20 gaaraya oo xilal qaran haya oo xilal waaweyn haya ayaa reerka ka soo jeeda ma jirto meel reerkan lagu xajiimeeyo meel lagu xagxagto iyo meel cid wax gaar ah iyo xigta qaar ay ugu haysa waa reer la garanayo waa reer halgankii dalkan door weyn ku lahaa walow
oo cabdiraxmaan isagu markii halgankii aanu ka mid ahayn kuwii halgamayo ku jiro inuu dalka aanu joogin dhammaanta iyo mas-uuliyiinteedaasi xisbiga kulmiyaanu nahay xasaanad qaran baanu huwanahay xilal qaranna waanu haynaa waana nidaamka aynu samaysanay ee nidaamka axsaabta badan arrintaana wax reera la yidhaahdo oo maanta halkan ka jira ama ka jiri doona maba jirtaay halkaa uu guddoomiyuhu sheegayna reerkani hogaaminta dalka horena way soo mareen dibna way soo mari doonaan doorka ay somalilan muwaadin kasta oo ku nool uu leeyahay mudan yahay ayay iyaguna mudan yihiin cid kala sarrayso cid wax kala leh midna ma jirto waxa kale oo guddoomiyuhu ka hadlay madal qaran in la isugu yimaado mudane guddoomiye cabdiraxmaan anuu ixtiraam badan u hayaa anuu aada u soo dhawaynayaa madal qaran shir beeleed iyo guuro bahalayn hoose oo reereed maanta somalilan way soo dhaaftay kuma noqonayso mana laabanayso halka ay maanta marayso golayaal qaran baynu leenahay golayaasha qaranka ayuu shalay guddoomiye cabdiraxmaan mid ka mida dhardhaarada qaranka ugu weyn oo guddoonka wakiilada ah uu soo hayay maantana rag la miduun baa jooga oo raggii golaha wada joogeen baa jooga sidaa daraaddeed madal shir qaran oo la isugu imanayo iyo madal beeleedyo la isugu imanayo iyo midmadow kale oo qarankan loo maleegayo midna maanta qarankan horumarkiisu kuma jiro golayaasha qaranka xukuumadda talinaysa hogaaminta dalka oo qori isu dhiiba oo aynu halkan ku soo gaadhnay ayuunbaa qarankan ka shaqaynaya wixii intaa dhaafsiisani soomaalidu waxay ku mahmahdaa haddii lugta la dhaafiyo dee wuu jabaa wixii intaa dhaafsiisani wax soconaya iyo wax jira midna maha ugu dambayn shacabka dalka jamhuuriyadda somalilan dhegahoodu way ka daaleen durbaan reereed iyo durbaan qabyaaladeed iyo kala qoqobka bulshada waxayna maanta u feejigan yihiin ilaalinta qarankooda waxayna ku hawlan yihiin horumarka qarankooda ka socda iskaashigooda iyo wada jirkooda taasaana somalilan ay ku soo jirtay taasayna kusii jiri doontaa guddoomiye cabdiraxmaan waxaan leeyahay mudane guddoomiye u soo laabo oo ku soo noqo xayndaabka hanaanka xisbiyada badan xayndaabka mas-uuliyadnimada xayndaabka horumarka iyo wada jirka dalkan xayndaabka ilaalinta qarankani muwaadin walba waxa uu ka mudan yahay aad iyo aad baa u mahadsantihin